fariinta taliyo waxay ahayd inuu na dareensiiyo inaan mashruucaas kiradhidkiisa anagu leenahay oo ah in aan anagu bilownay in shabaab shacab uu la dagaalamo macwiisleydanu xuquuq ma helin macwiisleydaynu daryeel dawladeed ma helin kiradhidkaas horta anaga iskale waa inaan taas uusan qofna gorgortan ka gelin madaxweyne waare ayaa waxa laga hayaa waxaan il eeda lagu fiiriyay ee il hooyo lagu ma fiirin waxaan rabaa hadalkii taliye Sanbalolshe ee mashruuca aan ku leenahay qaranka oo noogu sheegay dadka il eeda ku fiiriyay ee xumaanta u yeelay ee wareejinayo inaan yac ka iraahdo runtana aan u sheego oo aan maskax caafimaad qabto ku fasiro kana qabto maskaxdii jiraneed ee fasiraadda qaldan saartay soo dhawaada fariintan ha laga gudbiyo taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Maxamed Cabdullaahi Sanbalolshe oo ka hadlaya magaalada Maxaas ayaa wuxuu sheegay isagoo la hadlayay odayaasha dhaqanka cali madaxweyne in mashruucii ay dalka ku lahaayeen aysan burburinin mashruucaas oo ahaa al-shabaab la dagaalanka هذا الكاسي وهذا الحقيقة وهذا مرنا حقيقة أو قري وحنا نقول لنا مرنا لمبال إيه فرين أو حكومة ده هذا جرتو والدولة ده حاسة شيء أما بقوة إيمان دونا الدون كقلوا والب مشروع إلا ده تكون مشاريع دو دواد دفاع دان مشروع هذا كريدت كيس واد دفاع دان سيدو كلنا wax badan ay waxa waaye ay wax ku goostaan mashruucan al-shabaab la dagaalanka ma taqaanin imasa sanad difaaceen inaan anagu leenahay imasa waqti aan ku bixinay ma garanaysan ma ogtihiin oo ma la socotiin in la dagaalanka al-shabaab iyo bilaabitaanka macwiisley na lagu qabsaday ilaa haddana na lagu haysto macwiisley 2018 la aasaasay in loo saariyo oo la yiraahdo asaasiye macwiisleyda ama kuwii bilaabay inay macwiisley dagaalanto oo la sheegtay annagana macwiisleydanu tan 2008 ayay dagaalamayeen oo ay al-shabaab la dagaalamayeen ayagoo macwiisley kiradhidkii 2008 aad soo bilowday 10 sano kadib in adiga lagu sheegto oo lagula sheegto oo laga dul qaado al raba haddaadan difaacanin maxaad ku leedahay dalka cid walba dalka waxbay ku sheegataa qolaa ku sheegato inay federaalka keento hooyaday federaalka qolaa ku sheegato inay iyagu ma taqaanaa ay keeneen ama ay bilaabeen in madaxweynahoodu si nabad xilka uga degay aada Cabdullaahi Cismaan Allahu naxariisto waa lagu faanaa macna waa kiradhid qolaa waxay mashruuc dalka ku leedahay kala goyn waa burburin federaalkuna dhibku kana ogna anaga mashruuceenu waa positive waxaan ka soo marnay la dagaalankii al-shabaab inta wiilan ku weynay inta aan dhul ka xoreynay oo aan dhiig ku daadinay waa mashruuc weyn mashruucaas kiradhidkaas horta anaga iskale waa inaan taas uusan qofna gorgortan ka gelin kiradhidkaas aan anagu leenahay su-aashu waxay tahay xukuumadda dawladda hadda jirto wax ma uga helnay 4.5 ahaan iyo saami qaybsiga dawladda lagu joogaa qolo walba waxay ku leedahay wixii 4.5 lagu lahaa waxa maqnaadaan yaysa maqnaanin Allahu a'lam waxaas dadkii ku xisaabtamo siyaasiyiinta og laakiin macwiisley ahaan iyo dadkii juhdigaas iyo dadaalkaas bixiyay waa abaal ka dheeri wixii qabiilka lagu qaybsan jiray abaalkaas ka dheeriga maynaan helin waa xaqiiq macwiisleydanu xuquuq ma helin macwiisleydaynu daryeel dawladeed ma helin dadkii ay ka dhinteena metelaad u qalanto oo dhankaas ma helin taliyaha macwiisleyda aan dhahay la taliyaha macwiisleyda madaxweynaha noo sameeyay isagiina magaca baa bool looga dhigay moogiya xataa siduu yahay xafiiskaas looma howlgelinin oo kuma shaqeyn laakiin waxa muhiim ah fariinta taliyo waxay ahayd inuu na dareensiiyo inaan mashruucaas kiradhidkiisa anagu leenahay oo in aan anagu bilownay in shabaab shacab uu la dagaalamo
oo iska celiyo waa marka laga tago in magac urur lagu la dagaalamo annagoon magac urur wada oo shacab ah in la dagaalano dadkii bilaabo aasaaso dadka tusaanahayn maxaa soo haray waxa kale warka taliyaha laga dhadhansan karaa fariin loo diraayo dawladda hadda jirto iyo xataa kuwa ka dambeyn doona taasoo ah mashruucan inaan anagu lahayn xuquuqdan iyo creditkan inaan anagu lahayn isagii aan lahayn anaan waxba ku haysan oo ay tahay dawladdu inay hoos u fiiriso wartan haday hoos u fiiri weyso oo ay wax nagu siin weyso taa darteeda ay isu daryeeli weyso ta dambe hadana xuquuqdayna iyo mataqaana mashruucayna wali waa difaacanayna mashruucina iska burburinaa sababtu u yiriya waxay tahay hadii ciidankii furmaha uu ka soo baxo dhulkii aan shabaab hore uga xureynay shabaabaa soo degayo kirdidkii biri ma sheega karmasho annaga bilownay al-shabaab in la iska xureeyo intee xureysaa lagu leeyahay dhulkaan xureynay waa inuu difaacnaada si kirdidkaan u sii jiro horta waa hadalka taliyo waa saas qolada fasirka qaldan ka bixinay maskaxda ka xanuusan ee dhahayo federaal wax kale ku meelin annagu askaraanahay inta kalena war dawladan askarta qaranku qabiil walba way leedahay waana lagu wada jiraa askarna waa la wada yahay wixii dawladnimada loo doonanaana qolo walba walaxay ku leedahay kolba siyaasigoodana wuxuu doono wixii saami qaybsi iyo 4.5 ka kore lagu heli jirana kuma qadsanin sidaas darteeda waa in hadalka taliyaha aan laga qaluucin wadada loo rabo sambal shuwa siyaasi waa mid kamid ah xisbul haakimka hadda taliyo waa la dhaliili karaa hala dhaliilo maxumo wax qabadkiisa lagu dhaliilo waxa lagu dhaliilo laakiin wax anaga wax dan guud taabanayo iyo credit kayni taabanayo dhaliil loogama dhigi karo